السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإذن وضع سلام من كل جين فريم بار ربعين أندير ودالين يرد الصومالية ميلو الباقي جوغان وحان ربعين حسوسية ودن كودي أو إن بدن أو كمد أي هلمامين أما با ودمد قلاد أو أي جوغان إني كدري معيان comfortable إن بدن أو كمد إن حسوسنين إن لوري لواتن سنة ودن كيو إن النبات كجيرين إن بدن أو كمد إن حسوسنين إلو باهين هاي in badan oo kamid ah dhalinyaradana inay aaminsan yihiinba in ayna waxba u qaban karin wadankii amaba ayna waxba ka geysan karin. Waxaan rabaa in aan maanta ku xasuusiyo wixii dhacay way dhaceen qofkii dambiga leh Allah ka cafiyo laakiin adiga maadaama wadankaaga intaas oo sano uu macnaha nabad la'aan ay ka jirtay su'aasha birta lagu weydiinayo cuniga ku weydiinaya waxay tahay aabe ama hooyo maxaad qabatay maxaad soo kordhisay haddii marka adiga aad ku faraxsan tahay in wadan qalaad aad joogtid aad meesha ku tarmatid oo caruur ku dhashid caruur kale ay sii dhalaan oo micnaha ay hilmaamaan meesha ay lahaayeen iyo wadankoodii iyo dhaqankoodii iyo waxoodii dhanba waa arin gooni ah laakiin waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo inaad adiga wax qaban kartid inaad isbedelka aad doonaysid adiga aad la imaan kartid in aan idin xasuusiyo in aan nahay dadka ugu badan populationka Soomaalida 70% sida la sheego 70% waa dhalinyaro awoodaha aan leenahay waxa kamid ah waxbaan baranay waxaan aragnay wadamo kale sida ay u dhisan yihiin iyo management iyo administration iyo waxa ka jiro waxaas dhan inta isticmaalno baan waxaan isbedel muuqda ka abuuri karnaa wadankii waxaan rabaa inaan adiga ku sheego inaad xasuusatid in badan oo naga mid ah runtii wallahi aad baan uga naxaa marka arko qof dhalinyaro ah oo wadan kale joogo oo haddana xitaa aan ku fikireeninba in uu ama dib u laabto ama wax sameeyo ama muxuu ah isbedel soo kordhiyo wadankiisii meesha ay joogaanna ku faraxsan oo micnaha ay xasuusneenba in mas'uuliyad ay saaran tahay dadka aad la nooshahay iyo wadanka aad joogtid aabayaashood ba u soo shaqeeyay meesha aad ku baashaalaysid oo aad haba meel aad tagaysid oo iyo freedomki iyo nabadda aad joogtid dad ba u soo dhintay adiga marka hadii aad jeceshahay meeshaas inaad iskaga noolaatid aad iskaga faraxdid caruurtaadiina ay bari xaga ku noolaadaan waa khalad war waxaan idin leeyahay kulligiin maantay aan dadaalno xitaa khasab maaha in yoolka aan leenahay amaba nabadii ina annagii aan sameeyno khasama hadii aan dhaweyno oo aan intaan dadaalna aan dhaweyno caruurteen ay xaga ka qabtaan waa guul khasab maaha in adiga ku noolaatid midda kale qof walba yuusan u fikirin muxuu ahaa in uu asaga dareemo micnaha libintii amaba micnaha nabadii inuu dareemo ma aha hadii aad rabtid inaad isbedel samaysid ma aha inaad kursi ku fadhiisatid hadii aad rabtid inaad isbedel samaysid ma aha in aad muxuu ahaa lacag meesha ku heshid hadii aad isbedel samaysid ma aha in adiga wax ka soo gaaraan laakiin waxa muhiim ah in aad legacy ka tagto inaad wax muhiim ah ka tagto inaad wax qabatid inaad ummadda baaba'san oo rafaadsan meel walba ay joogaan aqoontaada iyo xirfadaada iyo muxuu ahaaye dhalinyaranimadaada inaad uga faa'iideysid waan ogahay in badan oo idin kamid ah in fikirkan uu ku jiray ama ka dhex guuxay waa idin xasuusinaya kaliya cidii aanan horay u ogeyn ayakan hadda ha ogaato waxaan rajaynayaa in aad fikirkan ila qabtid adiga videogan daawanaya xitaa si aan fariintan u gaarsiino dhalinyaro badan oo daafaha dunida meel walba ku nool fadlan muxuu ahaa la wadaag asxaabtaada hadii aad ka heshay oo adigoo isticmaalaya share aad baa u mahadsantihiin daawashada aad daawateen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.